gabadha yarta ah oo halkan soo socota oo iminka aad daawanaysiin waa la wiidaysanayaa oo waxaa daba jooga tuug carruurta xada oo raba inuu la cararo xaafadda ayaa adeeg looga soo dirsaday waxaa la yidhi dukaan hebel tag oo adeegga noocaas ah ka soo qaad intay jidka soo socotay ayaa tuug taag ah soo daba galay nasiib wanaag dukaankii ayay uga soo hormartay asagiina baarkinka ayuu soo galay balambi weeye waa suu rabee ogow albaabka ayuu gaariga u sii furtay wuxuu rabaa markay dukaanka ka soo baxdo oo ka soo dhammaato gaariga markay la siman tahay intuu ku tuuro inuu sidaa ula cararo eeg wuxuu iska dhigayaa qof mashquulsan oo taleefon ku hadlaaya oo asagaba tiisii haysato inuu hawlo kale iyo adeeg sugahayo oo gaariga saarahayo wuxuu rabi lahaa gabadha yar inay halhaleel u soo baxdo oo gaariga hore ugu tuurto hadday baabuur yimaadaan oo dadku ku soo bataan sheekadiisii iyo balaankiisii halis ayuu ku jiraa dhanka kale wuu dhegaysanayaa hadalkooda oo wuu la socdaa gabadhii yarayd inuu adeeggii gabangaba u yahay wuu sii diyaar garoobayaa suu hawsha u fuliyo iminka gabadhii yarayd adeeggii wuu soo dhammaaday dhankiisana wuu soo dhaqaaqday asaguna wuu sii diyaar garoobay taleefonkii ayuu jeebka gashaday siduu gabadha gaariga ugu tuuro asaga iyo albaabka dhexdooda markay marayso ayuu rabaa inuu hawsha fuliyo way badbaadisay gabadha dukaanka lahayd waxay ahayd gabar aqli badan oo indhaheedu iyo maskaxdeeduba furan yihiin waxaan fiidiyowgan idinkugu soo gudbinayaa oo inla wadaagayaa qof kasta oo wanaagsan inuu mas'uuliyad isa saaro ilmihiisa keliya inuusan mas'uul ka noqone ilmo kasta iyo bulshadu ku dhex jira iyo community-ga inuu indhaha ku hayo macnaha waxaan ka wadaa inuu attention-kiisa taagnaado oo waxyaalaha agagaarkiisa ka socda inuu ka warhayo ilmaha markii adeeg loo dirsado iyo meesha ka soo adeegahayaanba labaduba inay ka warqabaan oo indhaha lagu hayo dugsida iyo iskuullada iyo markay ka baxahayaan ay xaafadda aadahayaan in la sii eego ama la sii dhoweeyo arrimaha noocaas oo dhan in waxa weeye maaragtay community-ga iyo bulshadu ka wada shaqayso ayaa aad u wacnaan lahaa aad baan idiin salaamahayaa waa walaalkiin Axmed Boos iyo mar kale